kulanka 19aad kooramka golaha waa 142 ajandaha waa akhrinta koowaad wax ka bedelka sharciga iibka qaranka. golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta waxaa la hor keenay sharciga iibka qaranka oo akhrintii koowaad la doonayay in la marsiyo sharcigaasi oo baarlamaankii 9aad sanadii 2015 horay u meelmariyay. wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaana si kooban xildhibaanada sharcigaasi ugu hor akhriyay. mudane gudoomiye staad sheegtay waxaan idin keenay akhristii koowaad ee wax ka bedelka sharciga iibka qaranka oo hore loo qaybiyay. waxaan oo ka xariiqaya waxa weeye in ay tahay wax ka bedel sharci hore oo halkan ku ansixiseen mudanayaal iyo marwooyin waxaana laga maarmi waayay in wax laga bedelo. marka sidaas oo kala dhacdana waxa weeyaan meelaha in la calaamadiyo laga bedelayo dib loo habeeyo dabeetana idinka la idin keeno isla soo loo faquro dabeetana halkan la idinku soo celiyo akhristii koobaad weeyaan. gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada u ogolaaday inay si kooban uga hadlaan waxaana xildhibaanadii kulanka ka hadlay golaha shacabka intooda badan ay ka soo horjeesteen in dib loo soo celiyo sharcigan oo ay sheegeen markii la meelmariyay in aan lagu shaqayn maadaama aan lagu shaqayna sharcigaani dhaliilo uusan yeelan karin. in la shaqo geliyo ayaa wasaaradii dib u soo celisay iyadoo dalbanaysa in wax laga bedelo. marka bedel inta la soo celin lahaa wax ka bedelkiisa la soo dalban lahaa miyaynan ahayn horta in la shaqo geliyo marka hore ilaa sharcigu waa sharci ballaaran meelaha oo ay noqon karta ama imaan karta in wax laga bedelaana waxa laga yaabaa inay meelo kooban tahay. hadda sharcigii oo dhan oo kaamil oo dib loo soo celiyaana loo keenay sharcigana dee baarlamaanka ansixiyay lamana dhaqan gelin. su-aashiisa runtii xeerka waan akhriyay baarlamaankii 9aad baa ansixiyay waana u dhan yihiin runtii waxyaabihii lagu dhaqan gelin lahaa oo dhan golaha kaliya kama bixina waxa u dhan xitaa in madaxweynihii saxeexay oo la faafiyay oo waajibaadkii xeer lahaa oo dhan gutay balse wasaaraddu kale wixii faahfaahin ay ka hayso sababaha loo soo celiyay inay soo sheegi doonta. si guud haddaan u sheego mabaadi'da xeerkani uu wax ka xallin karo waxaa ka mid ah horta meelo ka mid ah xeerka waxaan ku arkay qodobo la leeyahay la iswaafajiyo Ingiriiska iyo Soomaaliga. nuqulka Ingiriiska ma hayna gudoomiye haddii ay jirto meelo lagu shaaciyo nuqulkiisa Ingiriiska aan wax ka aragno si dib ugu noqon amendmentigiisii isagoon ba dhaqan gelin after 2 sano iyo bar sax ilama aha. baarlamaanka sharcigaas uu baas gareeyay waxyaabaha hadda lagu soo qorayna waaba laga maarmaa xitaa maaha waxyaabaha majorka ma aha. anu marka waxay ila tahay sharciyo kala loo yeelo oo aad u tiro badan wasaaradda ha cadayso sababtii ay hay'adda ama authority-ga u dhisi weysaa inoo cadayso ama haddii maadaama waqti badan la geliyey oo baarlamaankii 9aad uu ka soo shaqeeyay haddana ay muuqato sidii xildhibaanada hore u sheegayeen wax weyn oo laga bedelo oo muhiim aysan jirinin waxay ahayd in sharcigan la dhiso guddigii marka hore qandaraaska qaranka. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa qaar ka mid ah su'aalo ay weydiiyeen xildhibaanada uga jawaabay. waqtigiina khasaarnay ayaga toona shaqadayada ma one second issue waxa weeye dad wax kala garanaya baan nahay waxna akhriya waxna fahma mas'uuliyad baa noo dhiibteen every day waxaan ka shaqaynaynaa waa arrinta lafteeda weey. haddii wixii loo baahdo markaa in wax laga bedelo wixii laga bedelena aan soo qornay meel kale oo la geeyaa ma jirto halkan lagu soo noqdo weeyaan qaanuunkaas aan faraya. haddii markaa committee isku raacaan inaan waxaan loo baahnay de markaa annagaaba meeshaynu joognaan ahayn annaga waxa leeyahay waa loo baahay caqabadaha jira meesha waan ku soo qoray level iski responsibility-gu isma waafaqsana baa leenahay. qof 2 milyan oo wax soo iibsaday arrin 2 milyan ayaa exception soo samayn kara iska socon kara soo doono samayn kara. Cabdi Caasriili Somali Cable xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.